لله مدحونا دولة فدرالك محمد عبد الله فرماجو رئيس ku-xigeenka madaxweynayaasha maamul goboleedada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wakiilka UN-ka iyo wakiilka African Union iyo European Union IGAD iyo dhammaan dawladaha oo Soomaaliya arrimaha aad u daneeyo Soomaaliya saaxiibada la oo ka soo qayb galay shirkan iyo wasiirada dhammaan assalaamu calaykum salaan kadib mahad ilaahay iska leeyahay mahadcelinayna shirkan oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo nabadgelyada runtii Soomaaliya jiddeer ay soo martay alxamdulillah ilaahay u mahadcelinayna haddana meel fiican ay joogtaa waxaan u rajaynaynaa in shirkan uu guuleysto Soomaaliyana Soomaalidii ay ahaan jirtay ay ku soo noqoto runtii muddo badan ayaa la soo kaalmeeyay Soomaaliya dawladaha aad ay soo kaalmeeyeen gaar ahaan AMISOM dhiigooda u horeen runtii wax dhiig ka qaalisan ma jiraan waa u mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in wax badan oo hadda dhiman laga qabto AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay anu waxaan isleeyahay kulli hadda waqtiga AMISOM bixi lahayd lama joogo sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin dhulkiina nabad ma noqonin dadka Soomaaliyeed hadii sida tan hadda yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay dhulkana nabad yahay jidadkuna ay furan yihiin inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo inta la helo taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii taas ayagana abaalmarin u noqon karta dadkii kaalmeynay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad u mahadsiin ayagana markii uu Soomaaliya nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan ayagana wixii bixiyeen ayagana markaas ay quuri karaan saas darteed waxaan rajaynaynaa in ciidamada Soomaaliyeed la dhiso oo qabateynta hubka nagala qaado ciidankeena la xoojiyo ciidamadeena dhibaatadoodu waxa waaye meelaha qaarkood ma difaaci karaan sababtana waxa ku kalifayso hubka ay haystaan hadii hubka ay culus ay haysan lahaayeen waxaan aaminsanahay meelihii ay la wareegaan inay haysan kari lahaayeen laakiin hadda ayadoo ku kalifayso hubka ay haystaan darteed ma ilaalin karaan saas darteed koonfur galbeed ahaan anaga waxaan rajaynaynaa gobolkan Shabeellaha Hoose dhibaatooyin badan anaga haysto markii hore colaaday iyo qabiilay ayaa jireen alxamdulillah dawladda Soomaaliyeed iyo international community ay aad u mahadsan intii gacan ka geysatay hadda dadkii way wada heshiiyeen waxaan rajaynaynaa in gobolkaasna gacan nagala siiyo meesha ay ku dhadhaleen kulli shabaabku ay wada degiin oo dhibaatooyin badan ka jirto waay gobolkaasina wax laga qabto dhibkii hore jiray iyo khilaafaadkii isu adeegsigii iyo shabaab isku adeegsan jireen dadka alxamdulillah waa laga soo gudbay waxaan rajaynaynaa gobolkaasna in gacan nagala siiyo sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan meesha ay AMISOM ay deganaan jirtay ay ka guurtay leega la yiraahdo dhibaatooyin badan aan ugu hayo jidkii meelihii isku mari jiray runtii dhib badan ka jiro marka leega waxaan rajaynaynaa in AMISOM muddooyin hore ay joogeen ciidankaasiga in meeshiisa lagu celiyo si jidkaasiga loo maro jidkaasiga dhibaato ka jirto lama mari karo waana jidka kaliya isku xiro Muqdisho ilaa iyo Gedo isku xiro waa runtii dhib badan ka jiro waxaan rajaynaynaa in wax laga qabto runtii Soomaaliya intii soo kaalmeysay dhamaantood waa u mahadcelinaynaa laakiin sida hadda ay tahay hadii aan dadku way diyaar garoobeen maanta waxay diyaar yihiin in shabaab la diraan marka maadaama shabaab inay la diraan ay maanta diyaar u yihiin in gacan la siiyo aan niyadda laga jibinin hadii laakiin meelaha qaarkeed sida hadda yihiin ay si ahaato runtii mushkil ay noqonaysaa waxaan rajaynaynaa shirkan inuu ka soo baxo meelaha dhibaatooyinka ka jirto in wax laga qabto ciidamo dheeraad lagu soo daro waqtigana sida uu madaxweyne Axmed uu sheegay waqti lagu xisaabtamo laga dhigo la yiraahdo maalin hebel waxaas la qabto bil hebel waxaas la qabto bil hebel ciidanka meesha lagu tababaro bil hebel maalin hebel ciidanka meesha lagu wareejiyo ciidanka AMISOM ciidankaas ku wareejiyo inaan yeelano waqti wax la qabto iyo waqti lagu xisaabtamo in la helo waxaan rajaynaynaa in ciidamadanada oo kuwa maamulada kulli dhibaatooyin badan anaga haysto muddo 3 sano jirna anaga 3 sano ciidamadii anaga aan tababarnay runtii ay noo tababareen AMISOM walaalaheen aad iyo aad ayaga u mahadsan ciidamada ayada wali wax kaalmo oo maanan helin ciidamada noocaas maalin walba way dhintaan maalin walba way dhaawacmaan wayna dadaalaan runtii waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeed iyo international community in ciidamada ayada gacan nagala siiyo
shirkan guulaan u rajeynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa international community gaar ahaan dadkii isku soo qaban qaabiyay iyo waqtigan iyo ka soo qaybgalka aad aan ugu mahadcelinaynaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.